cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland munaasabadda 18 May awgeed mudane madaxweyne ku soo dhawow. ورما هذا بحر منه عدد حول بس تشتري وكذي ورمارو إيه كمان جهد حاجة كده عدد واحد بس هذي عدد فرسان له رشي حاجة موجي يا سلام النادي واسع ما ورشنا عدد بس ورشنا حاجة ما تشتري واي وصل قابل هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي ومهده بشر رمضان بركيسان إلهي خير كي هاي نسيو دم الله في مغفرة هاي نسيو وحي إسلام نقول يدسنا الله نحرستو انتنا الله نقول نحرستو إلهي وحن كبرينا أفويك عذر كجراء أدوك ساميي إنك لبتوين وهي إنه إلهي مسيبة سيدك دول قاضه إن إلهي عذرك وصيع أيضا يرضو شاقا سفر نوغا سفر ما هو آفئ إن إلهي سفر نوغا إلهي نوفضي وحن إلهي كبريانا خير وطن إلهي وحن كم من براي وطن دعا كدب والله الله يرى ما أنت وبشي مي وما أنت قرن الله وحن حنبر يودريا dhammaan shacbiga Soomaaliland meel uu joogo guud iyo dibadba waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan golayaasha qaranka ee Soomaaliland axsaabta qaranka ciidamada qalabka sida ee kala duwan dhammaantood meel ay joogaanba waxgaradka culimada baayac mushtarka rag iyo dumarba dadweynaha Soomaaliland iyo madax raqameedkooda dhammaantood waxaan ilaahay uga baryaa caafimaad qab iyo inaynu sanad guurada teeda kale ku gaadhno bashbash iyo barwaaqo 18 May waa maalintii aynu xaqiijinay qarannimada Soomaaliland waa maalintii inagoo isku duuban oo aan cidna inaga maqnayn oo gacmaha haysanna ku heshiinay inaynu qaranka dhisno shirkii magaalada Burco 1991 go-aankii ka soo baxay in aynu xorriyadeennii kala soo noqono aynu kala baxnay qarannimadeennii midowgii aynu ku hongownay ee 1960 June iyo July waxaynu iyo talada inaga ka soo goday dadkeena ee aan dibaddeena kaga iman heerka dowladnimo aynu ku gaadhay walaalayaal markii lagu go'aamiyay Burco qarannimada Soomaaliland 1991 May waxa lagu ansixiyay afti dadweyne markii dastuurka la ansixinayay in dastuurka iyo qarannimada madaxa bannaan ay tahay laba taabtaan 2001 bishii May buraanka iyo sawaxanka siyaasadeed ee ku saabsan wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ee laga wado warbaahinta waxay muujinayaan bisay la'aan siyaasadeed iyo waay aragnimo la'aan iyo garasho gaabnida dadka maanta maamula xamar ee ku hadaaqa maalin walba soo dhajiyo boor ah Soomaaliland waa gobol ka mid ah Soomaaliya aad iyo aad bay wax looga yaabo tahay maan gaabnimada dadka 30 sano
og inaynu laba dawladood oo midowla gaarkeeda wax u dhisatay yahay haddana maalin walba kusoo sawira calan oo odhanaya Hargeysa iyo Somaliland iyo Burcaan wax u dirayna iyo Boorame taa waa ka hadli doonaa waa hadalladii hawsheeda waxaan saleeyahay taasi ma aha mid arrin lagu geli karo ee waa bulaasu iyo war suuqa socda xarunkan adduunka saameeyey ee COVID-19 dalkeena aad buu ugu fidaya waana caadadiisa marka hore lama dareemo inta aanu fidin marka uu dadka gaara dadka u horeeya xarunka u soo dhacaa boolinta ayuu si xoog u kacaa haddana hoos loo dhacaa marka waxaad moodaa maanta inuu xoog halkii ugu sarreysay marayo boqol iyo dheeraad baa laga helay weliba waxaan weli raadinaynaa inaynu helo ay tahay mashiinada lagu baaro xarunkan oo aynu helno magaalooyinka waaweyn Boorame Burco Berbera Ergaabo Laascaanood ugu yaraan hawshoodii waa lagu jiraa kala go-a diyaaradaha iyo haddii la yidhahdo adduunyada wixii la soonay aan la isu gudbayn awgeed ayay adag tahay markii la dalbado waa inuu raago waxaan u mahadnaqaynaa oo mahadnaq ballaaran sheedinayaa guddida loo xil saaray hawshaa ka hortagga fayraska ee maamulkeeda oo shaqo wacan qabtay ciidamadii qalabka siday oo dhan meel ay joogaanba si ay cadowgana uga diyaar garoobaan dalka haddii dhibaatadu sii balaartana wax uga qabtaan waxaa loo sameeyey goobo lagu kala tirimeeyay dhammaan socodkooda kasoo garaysa xuduudada muddo 14 cishaha meel kastaa ka soo galeen waxaa hoos loo dhimay qiimaha cashuureed ee bisha Ramadaan ee raashinka daruuriga ah 20%. dowladdu waxay abuurtay sanduuqa la dagaalanka COVID-19 oo ay ka codsatay dadkuna inuu soo taageero alxamdulillah maanta lacagta la hubay kusoo gaadhay waa ilaa 7 milyan iyo dheeraad sad dowladdu 1 milyan bay ku shubtay inta kale dadweynaha isugu geeyay waliba shirkadaha waaweyn maalqabeennada Soomaaliland dowladdu waxay abuurtay sanduuq la yiraahdo miskiin kalkaal oo lagu ururinayo qaaraan lagu taakuleeyo dadkeena baahan ee jilicsan ee qaadamada gahayd ee suuqa laga xidhay kaana dowladdu qaaraankii horreeyay dhigtay 1 milyan buu ahaa ilaa 2 milyan oo kale wax soo soo maanta dadweynaha waana maqlayseen guddida ka hortagga oo daraata 650 qoys u qaybinaysay raashin oo ugu badan dadkii ay dhibaatadu gaaraysay dowladdu waxay fartay sanduuqa lagu talagalay in lagu taakuleeyo ganacsada yaryar ee uu saameeyey xarunkan ay COVID-19 oo qorshaheedii iyada lagu jiro waxa kale oo xukuumaddu ka soo iibisay beeraleyda labadii sano ee roobka wanaagsan daay wixii ay beereen ee kaydahayeen in laga soo iibiyo ay dowladdu ka soo iibiso oo lagu daro gargaar dadka la siinayo oo aan laga sugin qabadi laga keenay meel aynaan garanayn waqtiga imanayso wax kasta oo la dadaalay walaa xarunku sii fiday maalin walbana waxaad arkaynaa hebel oo dhintay
waana aafo adduunka o dhan maraysa waxaynu u baahan inaynu sii xojino la dagaalankiisa oo ah inaynu qaadano awaamirta dhakhtarada waxaynu u baahannahay inaynu ismaqallo waxaynu u baahannahay inaynu ku dadaalno inaynu kala fogaano intii suurtagala maanta ku dheeraan maayo hawlaha xukuumaddu sanadkan ay soo qabatay waayo bishii dhowito warigii februari ka akhriyey gobolada gole ee wixii la qabtay iyo qorshe u sheegay si guud mara haddaan taataabto amniga qaranka difaaca qaranka iyo nabadgelyada dalku waa saldhigga dowlad kasta uu jirta caalamka dowlad waliba waxay haybad iyo tixgelin leedahay awoodooda ciidan iyo cududooda dhaqaale ilaahay mahadii 30 sannadood oo la yidhahdo ladima ictiraafin oo nuclear isku tashanay 30 kaba si nabadgelye iyo aamina ayaan u soconaa 30kaasna cadowga Soomaaliland waa badnaa siriya caabo u lahaa bareed iyo warwareeg iyo dhuumasho iyo sorxgal buu isku daayay ilaahay mahadii shacabkoo isku duuban iyo ciidamada qalabka sida kala duwan iyo dadkeena qarnimada ilaashanaya iyo madaxdooda oo boqolkiiba u soo jeeda qarnimada ilaalinteeda waxaynu ku gaadhay 30 sano oo nabadgelyo gudaheena ah cadowdeedana soo weerarna ay warigii fooda soo galin dalkeena waxa la xoojiyay tayeynta ciidamada dhinaca qalabka tababarka moralka iyo cududooda oo markii ugu horeysay ee tababar leeyay sarkaal dalka gudihiisa lagu qabto oo ay ka soo baxayaan saraakiil ciidan oo ay ku jiraan hablo waxa ciidamada amniga guduhu waxay hoos u dhigeen boqolkiiba 9 dembiyada ka dhaca magaalooyinka waaweyn iyo dalka guud ahaan waxa iskaashi iyo amni laga sameeyay dalalka dariska ah si loo xakameeyo dembiyada xuduudaha ka gudba waxa la dhameystiray isbitaalka ciidamada qalabka sida oo furan hadda la bilaabay oo adeeg hufan oo caafimaadkii doona ciidamada cadowga jamhuuriyadda Soomaaliya waa badan yahay hase yeeshee waxa uu muusgooyay shacbigiisa iyo ciidamadiisa isku duuban dhaqaalaha dalka hore uga hadlay waa badan yahay marka soo koobo dhaqaalaha dalku boqolkiiba 15 sanadkan kordhaabay ahayd waxa ilaa 10 waxa hoos u dhac badan ka imanaya cudurkan COVID-19 qorshihii dib miisaanada ugu sameyn lahaa ku talagalana waa lagu jiraa inta uu qaadanaya garanayno heerka uu gaaro garanayno waxay nagu qasaba inuu dib u eegno miisaaniyadeena iyo qorshayaasheena priority-goodii halkii koobaad markii hore ay noo ahaayeen 22 mashruuc oo ku kacay lacag ku dhow 20 milyan oo xilliga hore la sii daayay ahay way hakadeen way wax loo leexday dhinaca cudurkan COVID-19 walaalayaal waxaanu guura gaadhnay waxaa dalka soo socday haddana cid waliba dhaliisheeda waa leedahay dhaliisha Soomaaliland ugu weyn ee dhaqaalaheena iyo nabadgelyadeena waa dhigtay waxa weeye isku dhaca deegaamaysan ee beeraha weedega deegaamada dhulkeenu waa laga badan yahay dadkeenu wuu yahay dhulkeenu wuu yahay haddana waxa dhacda maalin walba beera isugu dhaca dhul la isku qabsado oo ah beer iyo barkad iyo wax lamid waxa naga dhintay boqolaal qof laba sano u dambeeyay waxa ku burburay hanti badan dad badan baa ku barakacay haddaa dagaalada raadiso oo si walba u xadhood baadhana waxaan sagaar ka biirsan baan ku dadka ku leeyahay oo dadka ku barakacay oo dhaqaaleena ku burburin waxyaalaha dhaqaaleena culayska badan ku haya waxa kamid ah isku dhaca beeraha iyo hawlgaladooda labadii sanadood u dambeeyay waxa la yaab leh inaga oo dal soo koraya oo horumar doonayo waxa inaga baxay dagaal beelado loo gurmanayo ee kolba barkad iyo beer iyo waxaan ka weyn la isku diraayo 9 milyan oo dollar 9 milyan oo dollar baa inaga baxay dhexdhexaadin iyo u gurmad iyo kala qabashada beeraha labada sano u dambeeyay imse iskuul bay noo dhisnahay caafimaad baynu u baahan biyo u baahan wax awliyo waxa la isku diray garanis markuu dadku la laayo ee la barakaco ee la burbura la oraya walaalayaal ka heshiin oo xaladala ka noqon maxaa isku dilay maxay waxaan soo jeedinayaa dhammaan waxgaradka media mutacalimiin sheekh shariif in dadka laga waanay dhulku waa ina deeqaayay inaan maalin walba ku dhammaan oo inaan isku gurman waxaan sagaar ka birsan gacan baa la isku diray barkada u leexday waxaan u gudbayaa kaabayaasha dhaqaalaha waa qorshihu aynu hore u soconay aynu ku soconay oo wax laga bedeli doono sanadkan waxa u badnaa in ceelal badan la qodo in shirka dayactirkooda la badiyo
lama taabo waddadii burco iyo ceergaaba iyo dawaaseedii ta koridoorka oo ay dhisayeen qolada carabta iyo qolada ingiriiska oo iyagu naga caawiyey inta leexashada ah iyagana maynaan taaban laakiin qorshayaashii waddooyinka wax badan waxa hakin doona ama wax ka bedeli doona xanuunkan covid 19 waxbarashada iyo caafimaadka oo labada ugu muhiimsan labadaba waxa ku dhacay culays miisaaniyadoodii horumarineed ee macalin lahayd ee dugsi dhis lahayd waxa ku dhacday labadaba culays fara badan oo keenay cudurkan dhammaan xooggeennii arrimaha bulshadu waxay u leexanayaan xooggoodii in lagu caawiyo wasaaradda caafimaadka oo ku jirta dagaal alcaalamiintu baaxadtu leeyahay iskuuladii waa la xidhay cudurkanaa xidhay macallimiin badan oo private ahaa oo shaqada mushaarkooda ku ekaa inay ardayda waxa laga qaado ku socdaan waa xidhmay waa cuse kaloo soo kordhay oo iyadana dib u eegid miisaaniyada ay lagu jirayay si loo xalin lahaa garsoorka waxaasoo dhibaatooyin jireen garsoorkeenna ilaahay mahadi labadii sanadoo u dambeeyey markii la tiriyey kiisaskii soo galay 5% ayay maxkamaddu waa ka gaadhay welina cabasho waa jirta maxkamadu way dheer yihiin maxkamadaha dheer waxa ugu wacan dadka oo marka la weydiinayo marka dacwadda laga helayo iyagu soo qaldaay oo korba marka go-aan gaaraba wax cusub ka dooranay gaar ahaan kuwa dhaxalka oo kale oo dhammaantood ku adkaaday ma aha inta badan dhaliishu ka timaada garsoorayaasha garsoor waxaan karaa waa bini aadmi laakiin dadaal qeyr caadi muujiyeen waxaa la sameeyey maxkamadda wareegta oo fudaydisay 60% dembiyadii laga soo qaadi jiray gobolada iyo degmooyinka ee la keeni jiray caasimadda maxkamadda ayaa 24 degmo ayay maxkamadda ka furayeen gobolada maxkamadda wareegtaana goob degmo kasta way tagtaa iyadoo awoodda ilaa iyo maxkamadda gobol ah marada ku afaaq xataa raacaan dowlad ahaan labada sano u dambeeyey waxaa kor loo qaaday dakhliga ama mushaharka xaakimiinta iyo shaqaalahooda 50%. qorshahana waynu sii karnaa waayo qofka xaakimka ah wuxuu bahay daryeel badan tixgelin sharaf iyo amnigiisa in la xoojiyo taasina waddada hana insha allah oo aynu gaari doono waxa soo dhabalaan ku yimid dacwadihii dhulka sababtoo ah dalka oo dhibaatadiisa arkay iyo maxkamadaha inta badan lagu xalliyo si sulxa iyagoo iska kaashanayaan dadweynaha ciidamada amniga maxkamadaha iyo culimada waxaan u rajeynayaa dhibaatada dhulka hoos u sii dhacdo oo aynu hoos u dejino waxaanu sheegnay howlaha ay qabtaan garsoorku waxay kor u qaadeen dakhligii ay soo xeray jireen ilaa 5% waayo markay dacwada qaadaan baa waxa la socda kharashka dacwada beesha caalamka iyo dalalka ay dariska nahay Soomaaliland waxay xoojinaysaa xiriirka wanaagsan ee ay la leedahay dawladda ay jaarka yihiin iyo kuwa kale ee caalamka oo dhan xiriirkaasi waxa uu mar kasta ku salaysan yahay wax wada qabsi nabad jaar wanaag isqadarin iyo ka faa'iideysiga fursadaha dhaqaale iyo ganacsi ee la wadaagi karo wadamada beesha caalamka waxaan ugu baaqaynaa in ay tixgeliyaan isla markaana taageeraan go-aanka iyo ayaka tagshiga shacbiga Somaliland ee qaraarkiisa ay cod afti iyo tala iyo dawlad dhis ku muujiyeen gargaarka caalamiga ah waxaan soo dhaweynaynaa gargaar kasta iyo deeq kasta oo beesha caalamku ku caawinayso Somaliland balse marna aqbali mayno gargaar deeq qaaraan dhaqaale iyo hawl soo marta muqdisho iyo Soomaaliya waa ku celinaya cid kastoo nala soo xiriiraysa ama taageero ama talo ama dhaqaale waxaan u sheegaynaa Soomaaliya inaanu 60kii midownay 30 sano dagaal iyo rafaad ku wada jiray 30 sano kala maqnayn waxba aaniga dhaxan meel ka dhac ay tahay aan qaadan karin in la yiraahdo hawshaas xamar ku xidho idinkii xamar ka heshiiya ma kama heshiin xamar cali waa aragnaa waa dawladda qura qaranimada Soomaaliland diidan ee ka baraysan ninka qarannimada iyo diidan colbaan saa darteed hay-adaha sibcada qurba ka dhaxaysa dawladaha waxaan u sheegaynaa annaga Somaliland oo dal gaar u taagan oo danta dhisanahay cidina xiisa oo wanaagsan tahay laakiin ma qaadan karno dafna oo aragnaa xamar baa waxay ka dhaxayaan ka heshiis oo hawlaha Soomaaliya Somaliland iyo
go-aanka shacbiga jamhuuriyadda somalilan uu yahay madax banaanideedu muqadas lama taabtaan ah sida dastuurku caddaynayo. haddana casrigan aynu maanta joogno ilbaaxnimada adduunka iyo caqliga fayooba waxa ay isku raacsan yihiin wixii khilaafaada ee yimaada in lagu dhammeeyo wada hadal si looga fogaado dhiig daata iyo colaado hor leh oo riiq dheeraada. in indhaha laga laliyo ma aha haddii la doonayo in la wada hadlo ama cidina dhex gasho waxa kowka oo shardiya horta in la aqoonsay inay yihiin laba dal oo kala waxbana wada hadlayo. ma waxba ka dhegeysan mayno, talan la geli mayno cid kasta oo uu yahay oo yidhaahda soomaali way dal waxa weeyaan dagaal ka dhex taagan yahay, soomaaliya dagaal ka dhex taagan yahay hala dhex galo. soomaaliya somaliland laba qaran oo qofkii ku dhexdhexaadinaya diyaar baanuna walaalada xamar nimanka xamar joogay aan isku soomaaliyana walaalaanahay hadday taa indhahoodu arkayaan waanu wada hadlaynaa. intaysa leeyihiin gobollada waqooyiga iyo magaalo heblaayana sidaa yeelina ay kolba calan diyaarad yaroo gaala leedahay kusoo sawirayaan heshiin mayna wada hadli mayno. waxaanay abuuraysaa colaad hor leh iyo caro hor leh. soddonkii sannadood ee somalilan iyo soomaaliya ku midaysnaayeen dowladdii somali republic waxay dowladdii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdankii odasalaan baa aada u garanayo oo aada waxaa u qori jiray nation oo ku saxiixi jiray mustar calaale annagoo arday aanu akri jiray oo uu og yahay xogo u yahay wixii ka jiray iyo tii ka dambeysay ee sagaal iyo lixdankii ee la baxday somali democratic republic ee kun iyo sagaashankii duntay isku dar labada. soddonkaas sannadood waxaa soddon sannadood inaga dhexdeena dagaal ka socday oo waxa hoos loo dilo iyo waxa bareer loo dilo iyo wax mudaharaad ku dhinta aynu ahayn. waxa ka markaa soddonkaa aynu silac ku jireen laba dagaal baynoo galay deriska labadaba somaliland buu dagaalkaa culayskiisa ku dhacay riiqdii. dagaalkii 77 somaliland culayska ku dhacay kuma dhicin xamar iyo agteeda. culayska weynaa ee dhimashada ee xoolan miisaano dhaqaale ee cusbitaalka hargeysa ninkii joogay baa joogay wax alliya waxa dumarka inan iyo sodo iyo ayay dhammaantood cusbitaalka hargeysa ay tagnaan dhaawac iyo culays dharka meelidiisa iyo cunto karintoodii iyo daawanteeda footar ay ku shaqeynayeen iyo ka burco iyo ka boorame dee war kuma dhicin. wuxuu dagaalkii wax yar bay ka ahay inaga gudaheedna dagaal bay nagu hayay dowladaha kala dambeeyey iyo colaad kabeedka iyo talaxumada waxaynu ka baxnay kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashan banu qara ka dhisan soddon sano kabeeda waynu joognay soddon sanona waynu kala maqnay. caqliga habeen walba inamada reer xamar jooga ay tv-ga kusoo dhigayaan bashoqaana ka fulinaya hargeysa heer baan u diray ruucabad harle iyo xumaan la bilaabaya haddii wax caqliga halkaa joogo. cid kasta oo aaminsan labadooda hadday wada hadalka diyaar baan unahay iyagana hadday taa aaminsan yihiin waa wada hadlayna. markay arrintu sidaa tahay dadku markay isqabtaan marka hore waxay ku heshiiyaan yaa wada hadlaya taa waa sheegay maxaa ku xiga ajandaha lagu hadlaya yaa laga heshiiya. ma aqbali karno go-aan ah oo inamada xawar jooga ku hadlaan wixii aan kala tagahayn kala go-ahaynba aynu ka wada hadal si cadoo dheer baan idinku sheegaya kala go mooye wax kale ku wada hadli mayno. waynu kala goro waynu kala tagnay ma wadaadinaa laba daba darisa ma ahaana haddii kale waxaa wadaa waa heli doontaa. arrinta labaad loo kala bixi karaa waxa weeye maxkamad caalamiya oo arrinteenu aanu soo isbaysano oo aanu carabka waxaan kusoo koobayaa walahi ka baryayaa maanta oo cudurkan ina dul saaran inuu inaga qaado inuu inoo sahlo inuu inoo khafiifiyo masiiladiisa iyo dhibaatadiisa. waxaan ku baaqayaa 8 May somaliland inaan loo baqanayn hadday ciidan tahay iyo hadday dhaqaalo tahay inaan iswadi karno xanuun kale inoo muujiyo intaan isku filaan. waxaa leeyahay hay-aduhu la oranaya waxaa lasoo marinayaa Brussels waxaa lasoo marinayaa Nairobi waxaa la keenayaa kan afarteena maalqabeen iyo dowladda iyo shicibkeena isku tashada oo qabtay oo maanta aynu ku soconnaa hadday si adkaatana wadi doonta kalsoonidaasaan ku qabaynay somaliland si wadayso. waxaan dadka ugu bushaaraynayaa in ay dhowdahay guusha oon huweynaan yeerayn qarannimadeenna iyo xoreynteena iyo madaxbaanineedna waa dhowdahay ha loo dhabar adaygo in ka badan baynu ka soo gudubnay meelaynu ka horreynina ma joogno inamada xamar joogana fariintaasaan u dirayaa
wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. waa kule caddaad ba ka jeedi wadaasha cadda ka soo jeeda waxaan ku haray ها أروح على كذا وراش كيف يصير تي عسكري ما يا اسكف لسه واحد طلع بلاسينه بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على امور الدنيا والدين waxayna halkan ka xaadirinayna oo taliyo wakiishay inaan halkan ka xaadiriyo 12kii sargaal ee ugu horeeyay ciidanka qaranka Soomaaliland ee loo aqoonsado iyo biladgees kuwaasoo 3 ka mid ay maqan yihiin say u qaadaynaa anagu waxaa fadhiya goobta 9 sargaal waan xaadirinayaa warqadda sidaa u kala horeyso waan xaadirinayaa gaashaanla sare Ismaaciil Faarax Cawaale Doolaaq سؤالك ما توكس صباح كيف سولوي يا gaashaan la sare Ismaaciil Faarax Cawaale Doolaaq اوكي سولو دawad gabadha say fursad salaale كيف شوف mid kale u siinay ما قولي media حاجه شو اوكي هو قبصه حقنا ولا الضي يا قدامي تفضل gaardu soo حكومه gaashaan la sare Axmed Hurre Hari هذا هو هري ما انا باركي هو هري markii leeska la qoray hoggaanka hawlgelinta mu hayn imika hoggaanka hawlgelinta ciidanka qaranka way هو هري نكو عيون اهلا وسهلا salaam صوت تفضل gaashaan la sare Mahad Faarax Cilmi oo loo yaqaan Mahad Cambaashe welcome اسكورها ما حضي كان قاعد gaashaan la sare Cabdilaahi Suufi Axmed abaanduulaha aaga bariga gaashaan la sare Yuusuf Iimaan Diiriye gaashaan la dhexe Kayd Cismaan Maxamed soo diyaar garow gaashaan la dhexe Kayd Cismaan Maxamed hal tallaabo horay soco sawirka gaashaan la dhexe Ibraahim Cali Sabir
gaashaanle dhexe maxamed cabdilaahi cartan rujiye soo jeediis gaashaanle dhexe cabdilaahi maxamed axmed oo dhaga weyne ku magac dheer background buu noqonaya saddex baa hadhay maqan waa loo qaadaya waxaa maqan oon goobta fadhiin shaqo awgeed looga maarmi waayey sarreeye guuto cali bare xuseen jenaraalka taliyaha aagga bariga gaashaanle sare faysal cabdi bootaan taliyaha qaybta 12aad gaashaanle sare cabdilaahi ibraahim xasan oo ah taliyaha guutooyinka madaxa bannaan oo fadhigiisu yahay iminka yube saddexdaana waxaa u qaadaya taliyaha ciidanka qaranka sidii ballantu ahayd anuma qaadaan baradaan yeedhiyo okay okay yaan u dhiiba hawshoodii qorshahoodii iyo biladaha soo sameeyay biladaha in la sameeyaa waqti badan bay qaataa inagu ma samayno dibadahan u diraa markaa iyagana booliiska ciidamada kale kala duwan qolo walba biladaha ay hawshoodu leedahay way u soo socda ma ay qodan ciidamada qaranka una hoog loo horde soo maaha adigu dee tali kolka hore qoladana ahayd imikana xaggana tahay marka la geliyo hal sawir baa la geliyo ii jooga xagga dambe ii jooga taliya gal sawirka xagga dambe ii jooga sawirka sawirka galeynaa ii jooga xagga dambe ayay kala durugno sawirkii aan bilaabaynaa eeg doolaal iyo isugu idinku barbaad waxay la galaysaa idinku ma jirtaan waaya idinku ku jiraan sawirkii waan gelaynaa sawirkii waan gelaynaa iska daa iska daa
mudane madaxweyne waxaa salaantaada u diyaara cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland munaasabadda 18 May awgeed mudane madaxweyne ku soo dhawow